waxaa jirta ciyaar loo yaqaano Tai Chi oo gacmaha laga ciyaaro oo wadanka China laga yaqaano. ciyaarta Tai Chi la yiraahdo oo gacmaha laga ciyaaro waxa ay ku saleysan tahay hadba qofka uu ka dabacsan yahay inuu ka guuleysto. sida daraadii qofka uu jirkiisa ka dabacsan yahay oo xarakaadka iyo dhaqaaqyada la sameeyo uga sahlan yahay uu ka guuleysan yahay qofka kaleeto ee meeshiisa taagan adag. hadii laba qof aan tartan siino mid uu almurqaani yahay oo xoogan yahay macnaha mid kalena uu caatay oo daciif yahay laakiin kan daciifka caatada ah uu ka dhaqdhaqaaqi og yahay kana dabacsan yahay kan kale ee buuran ee murqaaniga ah ama adag macnaha jir kale waxaa reynaya mid kan dabacsan ee dhaqdhaqaaqi og. kulankeena maanta kelmadiisu waxay tahay noqo biyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. soo dhawow. waxaan ka wadnaa noqo biyo ama noqo sida biyaha oo kale. biyuhu waxay leeyihiin astaamo u gaar ah oo rabno in annagana aan nolosheena ku tadbiiqino ama ku dhaqan gelino astaamaha iyaga ah. maxaa kamid ah astaamaha biyaha ay leeyihiin? astaamaha biyaha ay leeyihiin waxaa kamid ah in ay socdaan ay durduraan halkoodii ma taagnaadaan. biyuhu halkoodii kuma dhagaan, halkoodii kuma dhagaxoobaan, waa dhaqaaqaan. hadda daan miiskan oo kale biyo yar ku daadiyo waxaad arkaysaa inay biyihii dhaqaaqayaan hadba dhinaca markaas u sahlan oo u fudud ay u dhaqaaqayaan. marka ay buur soo dhax jiirayaan biyaha kuma fakara inay buurto anjabiyaan hal mar meesha ka leexiyaan ee waxay raasaan daldaloolka ay mari karaan si ay u gaaraan ujeedooyinkooda iyo meesha ay ku socdeen. sidoo kale adigana raadso hadba wadada sahlan ee ku gaarsiin karta hadafkaaga ujeedadaada meesha ku socoto waxa aad rabto nolosha inaad gaarto. waxaadna ogaataa hadaf kasta iyo ujeedo kasta aad rabto inaad gaartid laba wado ayuu leeyahay. wado adag iyo wado fudud. sidaan soo sheegnaba hadda ka hor ee guusha gaarideeda ma sahal baa cashirka ahaa saan ku soo tilmaanayba. dadka qaar waxay sida tixsigii oo kale waxay ku mashquulsan yihiin jibinta dariishada halka iridda ay gadaashooda furan tahay. marka haddii aad garan weyso wadada sahlan ee aad ku gaari karta hadafkaaga adiga khaladka iska leh. maahan in noloshu adag tahay ama hadafta nolosha in la gaaro inay adag tahay ma ahan. sababtoo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yuriidu allaahu bikum al-yusra. ilaahay wuxuu idinla doonayaa fudayd iyo sahlanaan. yuriidu allaahu an yukhafifa cankum. ilaahay inuu idinka khafiifiyo idin dabciyo jecel yahay uu rabaa. marka adayg ma jiro. haddaad aragto adayg iyo culays iyo dhibaato waxbaa kaa khaldanay dib isu fiiri oo isu muraajace. biyaha astaamahooda waxaa ka mid a in weelka lagu shubo ay qaataan muuqaalkiisa iyo shakligiisa. haddaad bakeeri yar ku shubtid bakeeriga qaabkiisa yeelana. haddaa weel weyn oo calool weyn ku shubtid weelkii weynaa ay qaadanayaan. haddii weel saa u dheer ku shubtid waa isku ballaarinayaan. hadba marka waxay qaataan weelka lagu shubo ayay qaabkiisa qaataan. taa waxaan ka qaadanaynaa iyadana in aan yeelano dabacsanaan flexibility muruuna inaan yeelano si aan ula falgalno nolosha taagnaan iyo soo taagni iyo adayg kaliya kuma maaragtay kuma haboona mana lagu qaabili karo. waa noloshu waa dabacsan tahay waa gadgadoon badan tahay. waxaa laga rabaa adigana inaad bisishahay oo dabacsan tahay oo hadba sida kuu soo qaabisho aad u fiiriso. marka dabacsanaantaas iyo biyaha waxaa ka mid a maalan waxyaabaha astaamaha oo inay socdaan mar walba durduraan si joogto ah ay u durduraan u socdaan. halkaas waxaa ka qaadan karnaa in caadooyin wanaagsan aad si joogto ah u samaysid ayagoo yaryar caadooyin yaryar oo ku gaarsiiya ujeedkaaga aad rabtay oo si tartiib ah u wado. qaliilun daa'imun khayrun min kathiirin munqatic. wax yar oo aad joogtaysaa wuxuu ka fiican yahay wax badan oo hal mar xamaasad intaad gashid hal mar samaysid haddana aad ka joogsatid. waa hadalka nabiga sal ly slam. sidaa daraaddeed caadadaada si tartiib u samee si tartiib u dhis. waxay yiraahdaan waxa adag in caadooyinka wanaagsan la sameeyo la dhiso. inaan wax akhriyo, inaan joogtayn sameesto, inaan ahdaafteeda aan gaaro, inaan yeesho go'aan adag oo aan ka dhabeeyo wixii aan go'aan ku gaaro. caadooyinka wanaagsan oo dhan way adag tahay samayntooda. waxaase sahlan inaad ku noolaato. marka aan saan u akhrinayo maalin kasta 3 page saan u akhrinayo maalin kasta daan akhriyo ogow 3 page kadib way ii korortay 5 page aan gaaray kadib
maalinka dambe nolosheeda wax kamid noqonay waxa sahlan marka caadada wanaagsan inaad ku noolaato halka dhisideedu ay adag tahay huffatil jannatu bil makarih jannada waxa lagu harareeyay waxyaabaha bilowga hore culayska kugu aan ku fudayn waxa sahlan in la sameesto caado aan wanaagsaneyn waxa adag in lagu dhax noolaado huffatin naaru bishahawat فإذا مركو قفك سا أسميست عادوينكيس وكل إحنا هذا معنى كده ما حركيسا جوشي عادوين كذي عادوين كهرمرين النفط وحي نقدم وإحنا ولا شيء سكمله أو أسهلا أو جاري كرو سيدرادي ذو حي رهذان بيها أيجو جلعان أي جبل كجبيان بيها جلعين هذا جبل كجبين يعني صوته وح أي كوذان جوكتين كعلين معنى كستماشوا ذيك الدردريان إلى ماش أي جهان إذا خلاف قوانين تأيسون كونية كبر بيها وحيابة فربضا ونرش هذا سيدا ونعكسن أبدلا ما هتسند